بروجكت سوماليلاند ee uu Ibrahim Caawa iga difaacaya oo project xabashi leedahay waxa la yahaa Soomaaliland rabitaan shacab ay ku timi qaxooti ahaan dadka la hafraya in Soomaali dawlad weydo kala tagto kala qoqobatana waxay ka bilaabantay in tolkayaan ka soo jeedo isaaqa inay xabashi la soo saftaan dawladnimadoodina la dagaalamaan kadibna dumiyaan kadibna aan doorsadayaal iyo kuwa tuugsada noqono taasay ka dhalatay dhaawacyada leeday waxay u leedeen waa dhiig la'aan waxa la duqeeyay soo saarayaashii oksijiinta waarkii hooyada iyo dhallaanka waarkii emergency-ga dagaalka waxa lagu laayay dhakhaatiir caafimaad oo shaqada nafbadbaadinta ku guda jiray waxa la beegsaday oo la burburiyay laba kamid ah ambalaasyadii ama badhooligii soo gaad gureynayay dhaawacyada iyo meydadka kuwaas oo madaafiicda la eegtay sidoo kale waxa dhacay dadka in dhaawacyada madaafiicdu uga daba tageen iyagoo waararka cisbitaalada lagu dabiibayo anigoo dhaawac ka biskooday halka baridaanta iga dhacday halka ka soo baxday islaanta markaa ka jaaysta laga qalay ay wax yeesho dhowr jeer laga qalado markaasan kooma galayo xaalka Soomaaliland waa xaal cakira kala daran duruufuhu baaqiyaa baxaya dhawaaqiyaa yeedhaya warka dhiilada xambaarsan ee dayaca adeeglaydu keentay ayaa soo taraya cadaaladda cadceertay ayaa dheer weheshiga xabsiyada camiran waa mid ku lamaan xorriyad xoorin iyo caburin baa wehelisa waxaasi oo isbiirsaday waxa haatan ku biiray cudurka coronavirus oo loo garan og yahay COVID-19 iyo hoggaan xumidii madaxweyne Biixi ee bulshada ku habsatay 2017 taasoo iyada loo garan og yahay Muuse 17 COVID tirada wehelisa waa xilligu dunida yimi oo ah 2019 halka Biixi tirada dheer ee 17 kuna ay tahay xilligii uu qabar dhacay sidiisi talada fuulay 2017 haddaba duruufaha iyo waayaha cakiran ee hore bulshadu wehelka ugu ahay qaabkee labada dhibaato ee COVID-19 iyo Muuse 17 ay wada saameeyeen sida wax u socdaan kolka dadku sharaxayaan waxay ku suureeyaan waa siday tahay in cudurku ruuxda dadweynaha guranayo halka Biixina dhaqaale dayn iyo dakana wixii dalka soo galaysna uu daldalay nafaca COVID-19 qaatay iyo dhaqaalaha iyo deeqaha Muuse 17 isna qaatay aynu eegno deeqdii Turkigu meeday diyaaradii siday deeqdii Imaaraadka deeqdii Shiinaha ku dar deeqdii Soomaaliya la soo marsiyay kadabagee deeqdii qaba intaasoo diyaaradood ku rid dabadeed ku dar malaayiinta dollar ee ganacsatada ganacsiga ku haysata minabaligu iyaguna ugu deeqeen dadweynaha kadabagee qurba joogtu waxay dhiibtay ku dar iyana dhaqaalihii laga saaray khasnada dawladda ee 3 milyan aha intaasi 9 milyan ayay ku dhowdahay COVID-19 intaasi 9 milyan ayay ku dhowdahay COVID-19 isagana dhugo sidoo xaal yahay waxaa baraha bulshada yaacaya qaylada iyo baroorta ee helada dadka COVID-19 dayaacaya adeeglayda isbitaalada uu ugu dilay Muusena ku daawaday burco meydku tarab Hargeysa inta la magac garanayo intaan la aqoon baa ka badan boorama ciirciiraysa berbera xabaaluhu lamid ceeri gaaba iyo laascaanood iyagana weli weey miyiga warba looma hayo kala daran labada dhibaato ee shacabka Soomaaliland dhanka COVID-19 iyo xabaalaha waa la yaqiinsan yahay inaanay buuxsanin hase yeeshee su'aashu waxay dul taallaa sanduuqa dhanka Biixina isana ma la midba laascaanood qof kastoo lagu dilay Soomaaliland iyo sirdoonkeedu ay dilalka fuliyaan way baa loo dilayaa dadka laascaan Soomaaliland baa dishay way bay u dilaysaa maxay u dilaysaa laascaanood qof kastoo caqli leh uu garanaya maalintii Soomaaliland timi ilaa iyo maanta qof kastoo lagu dilay haddaad profiling ku samayso sababta loo dilay waad garanaysaa way baa loo dilayaa dadka laascaan Soomaaliland baa dishay way bay u dilaysaa maxay u dilaysaa wax kale looma dilayo dadku ha rabaaydoobeen استراتيجيات قرن ويان عرقابه كسو gudubtay booromay ka dhici jirtay booroma maxay ta laga soo gud oo hubkii laga dhigay laas aanood tan way isdhiibi weyday muddada ku dheeraatay
laakiin dilalkan shaki kuma jirna daahma saarna waan sababaynayaa in Soomaaliland